السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سو دوادا ومركله وبرنامج كله يكيستا تي في سيدا هالكا إذن كم وقتبا مانتا وحان إذن هيا war aad iyo aad muhiim u ah oo ku saabsan xaggii corporate transparency act ama sharcigii laga rabay ganacsi kasta oo Soomaaliyeed ama Mareykan ba jooga ilaa 30 milyan oo ganacsi ay sheegeen dalkan Mareykanka in ay soo register gareeyaan bisha March 21keeda bishan 21keeda waxa dawladda federaalka Mareykanka ay rabtay in ay ku qasabto ganacsi kasto oo dalkan Mareykanka ku yaalo in uu soo register gareeyo up to 30 million businesses marka businessyada Soomaalida ay leedahay badankeed waa iska wada naqaanaa waxa ugu horeeya businesska traga waxa ku xiga kan limousine-ka iyo taxiga waxa ku sii xiga home health care-rada iyo waxa ku sii xiga kuwa dukaamada yaryar de Carmel iyo oo kale ku leh marka ganacsiyada noocaas ah ayaa waxa qasab ku ahayd maadaama ay yihiin small businesses waxa qasab ku ahayd in ay soo report gareeyaan oo ay soo xareeyaan waxa loo yaqaano beneficiary ownership information reporting inay soo xareeyaan ayaa qasab ku ahayd marka sharciga isaga ahaa oo 2021kii ay baasiyeen Congress-ka dalkan Mareykanka CTA-ga ama Corporate Transparency Act-ga la dhigay oo cabaarba maxkamadaha dalkan Mareykanka ku soo dhex jiitamayay oo cabaar ku soo dhex socday dalkan Mareykanka maxkamadihiisa mar uu judge joojiyo iyo mar dib laga fasaxo iyo mar hadana la joojiyo hadana mar la fasaxo u badnaa ayaa finally waxa shalay oo bisha 3 ay ahayd March waxa ka soo baxay arrinkii ugu wanaagsanaa ee ka soo bixi lahaa maxkamad ku taala waxaan ka rabaa Michigan oo ah maxkamad federaali ah oo US District Court oo ku taala West Michigan ayaa waxa ay xukuntay shalay in sharcigan dawladda federaalka ah ay ku raadinayso in ay ganacsiyada ay soo report gareeyaan qof kasta oo LLC incorporation uu xareysan yahay ama incorporated ah ama LLC ah uu xareysan yahay in uu soo report gareeyo sharcigii waxay tiri maxkamadda waa unconstitutional constitutionka dalka Mareykanka ayuu ka hor imaanayaa bay tiri qodobka afraad waliba fourth amendment-iga ayuu ka hor imaanayaa bay tiri maxkamadaas so sidaas awgeed dawladda federaalka awood uma laha in wax dastuurka ka hor imaanayo dalka Mareykanka especially qodobka afraad oo dhigaayo fourth amendment-iga ayaa la yiraahdaa unlawful ama illegal search and seizure baa la yiraahdaa in si aan sharci ahayn dawladda ay ku baarato iyada oo aan wax warranty haysanin ganacsiyadana sharciga ay ku apply gareeyeen marka maxkamadaas markii ay dhacday oo ay xukuntay in sharcigan uu yahay unconstitutional oo constitutionka dalka Mareykanka uu ka soo horjeedo ayaa maxkamad kale oo ku taala iyadana Utah oo laakiin iyada nafteeda ah district court oo Utah ku taalo ba iyadana waxay soo saartay in ay deal siiso dawladda federaalka ahayd marka maxkamadii qolyahan la yiraahdo FinCEN Financial Crimes Enforcement Network baa la yiraahdaa waxa ay waax ka yihiin waxa qayb ka yihiin baan ka rabaa waaxda treasury-ga ama waaxda lacagaha ee dalkan Mareykanka ay qayb ka yihiin so maadaama ay qayb ka yihiin treasury department-iga maxkamadii deal ayay siisay waxaana lagu heshiiyey district court-ga Michigan haddii ay soo saartay in sharcigan uu yahay unconstitutional dawladda federaalka ah ee Mareykanka ma enforce gareyn karto baa la yiri in ganacsatada yaryar ay ku qasabto in ay soo buuxiyaan BOI-ga ama BOIR-ka waxa la yiraahdo ama beneficiary ownership information reporting company-yadii ahaa 30 milyan oo company can you imagine 30 million companies ba eligible u ahaa inay soo xareeyaan marka qofkii hore u xareeyay oo iska buuxiyay de wuu iska buuxiyay laakiin qofkii aan buuxinin sharcigii isaga ahaa
shalay mar saddexaad iyo mar afraadba waa laga noqday oo waxaa la soo sii daayey in Treasury Department announced waxay announce gareeyeen a press release bay soo daayeen warmurtiyeed bay soo sii daayeen oo ay ku sheegeen in ayagana ay ka noqonayaan sharcigii ay ku qasbi lahaayeen dadka Maraykanka jooga oo kambaniyada yaryar ah oo LLC-yada iyo dukaamada yaryar iyo tagaasida limousine-ka trucking-ka waxaan ay u register garaysan yihiin magacyada oo everything xaraysato kambaniga markaa soo deysato kolley LLC ama incorporation mid baa ka dhigaysaa so kambanigan marka waxay sheegeen in ay joojin doonaan maadaama sharcigii unconstitutional lagu sheegay in ay joojin doonaan in ay enforce gareeyaan haddaan idin sheego ganaaxa maalinkii wuxuu ahaa $606 bay ganaaxi rabeen dadka deadline-kana waxay ka dhigeen March 21 bay ka dhigeen 2025 oo dadka waxay siinayeen only a couple weeks ay siinayeen 2 weeks ayay bixinayeen $606 maalinkii 10 kun markay kugu gaartana 2 sano oo xariga aadaysay haddii aad magac leedahay oo aadan soo report garaynin laakiin wixii waxaa isku fuuqsaday in sharcigaas isaga unconstitutional waa la dhahay oo constitutionka dalka Maraykanka ka hor imaanaya kow tan labaadna waxaan hadda haysanaa madaxweyne Donald Trump oo taageersan in sharcigaas la joojiyo isagaba uu taageersan yahay waxaa kale oo taageersan asagana in ay waxaa kale oo taageersan in la joojiyo sharciga ninka dhan oo xukuma waaxda treasury-ga Bensent baa la yiraahdaa isagana ninkaas marka ninkii ugu sarreeyay qolyihii enforce gareyn lahaa sharcigan oo dadka dembiga u qabsan lahaa oo sheekadan waday oo dhibaatada nooga dhigi lahaaba ninka xukuma waaxdaas oo dhan wuxuu taageersan yahay isaga iyo madaxweyne Trump waxay taageersan yihiin in sharciga la joojiyo oo aan dadka aan lagu qasbin in ay soo report gareeyaan businessyada sidoo kale waxa ay sheegayaan oo isku raacsan yihiin iyaga naftooda in sharcigan uu maaragtay dhibaato ku yahay oo uu xil kale iyo mas'uuliyad kale uu dusha saarayo dhahay madaxweyne Trump ganacsiyada yaryara oo marka horeba la daalaadhacayay regulations fara badan iyo maaragtay oversight oo uga imaanaya dowladda federaalka ah marka in loogu daro tanna waa ka xunnahay bay yiraahdeen so waxaa is og madaxweyne Trump iyo ninka treasury-ga haysto way isla socdaan oo is og yihiin labadooda marka waxa ay ka siman yihiin in sharciga la joojiyo so March 3rd 2025 oo shalay ahayd waxa ay soo saareen Treasury Department it will not enforce baa la yidhi sharcigan dadka kuma xukumin doonto the CTA waa Corporate Transparency Act baa la yidhaahdaa wax badan videoyo badan waan ka soo sameeyey aniga oo dadka oga digaayo in ay maaragtay aysan ku kaadsoomin oo ayagoo aan buuxsanin annaga dhan kambaniyadeenna waa u buuxinay qofkii buuxiyey wuu buuxiyey nobigii laakiin qofkii aan buuxinin haddeer anymore you don't have to inaad samayso wax ganaaxa oo ka imaanayana ma laha deadline-kii ay u qabteen March 21 wuxuu noqday null and void because waxay yidhahdeen ma enforce garayn inay yidhaahdeen issue a press release there will be no enforcement of any penalties bay yidhaahdeen wax penalty ah oo aan keenayno oo aan enforce garaynayno jirto or fines ama ganaax xagga lacagta ah associated with the BOI reporting BOI-ga ama beneficiary ownership information reporting-kii sharciga ahaa oo la iska rabay in la soo buuxiyo 21 ugu dambeysay March haddii kale ahayn ganaaxa idin sheegay oo maalinkii $606 la isganaaxayay way joojinayaan marka waxay dhaheen under the existing regulation deadlines of March 2021 or later haddii hataa la dhaafo wax dembiya oo aad ku leedahay ma jiro dad badan ayaa ka walwalsanaa oo aan weli buuxinin baa jiray dad aan actually la soconin baaba jirayba waxaan meesha ka socdo oo dhanba oo hadhow ku kaadsoomi lahaa businesskoodii la xiri lahaa iyagana xabsi loo diri lahaa laakiin waxaa la sheegay
waxay sheegeen in Feinstein will not enforce any penalties or fines against US citizens dadka Amerikaanka ah oo dalkan u dhashay of course anaga nafteena ka mid ah iyo domestic reporting companies kambaniyada dalka Mareykanka laga register gareeyay like let's say Minneapolis oo kale Ohio Seattle Colorado stateyadan aan u badannahay annaga Soomaali haddaan nahay oo qof walba waxa u xareysan magac business ah buu leeyahay oo secretary of state-ka ama xogayaha state-ka guud uu uga register garaysan yahay so magacaas LLC-ga ah marka hore waxaa laga rabay in uu soo report gareeyo laakiin haddeer no more reporting bay yiraahdeen mar dambe lama soo report garaynayo arrinkan waa arrin guul ah oo aad iyo aad u fiican arrin muhiim ah waaye madaxweynaha Trump uu taageersan yahay ninka treasury-ga xukumo Mr. Bensent isagana uu taageersan yahay so maadaama uu ninkaas taageersan yahay sharcigan sidiisaba waxaa watay nimankii dimuqraadiga ahaa baa dabada ka riixayay oo intii Congress-ka ay haysteen 2021kii oo iyaga ay Congress-ka haysteen iyo intii ay haysteen ba Senate-ka baa la baasiyay so sharcigan uu ka soo horjeeda Trump iyo kooxdiisaba so Treasury Department will issue proposed rulemaking sharci ay soo propose gareyn doonaan qolyaha Treasury-ga sharcigaasna waxay ku soo qori doonaan sida ay sheegeen kambaniyada kaliya dalka dibadiisa laga leeyahay oo dalka dibadiisa laga leeyahay oo foreign companies-ka ah unbaa laga rabi doonaa inay soo report gareeyaan sharcigana sidaas ay rabaan inay u bedelaan waxay yiraahdeen BOI reporting so that only certain hata kuwaas naftooda all of them lagama wada rabo certain foreign companies registered to do business in the US kambaniyo waxaa jiro dalka dibadiisa ka register garaysan laakiin dalka Mareykanka dhexdiisa ka samaysta ganacsi ka sameeya so kambaniyadaas ayaa lagu soo koobi doonaa in ay soo buuxiyaan BOI-ga ganaxana waxaasna iyaga ay u qaban doonaan so President Donald Trump and Treasury Secretary Scott Bessent ninka la yiraahdo oo Treasury-ga hadda ka ah secretary labadoodaba both issued statements waxay bixiyeen statementyo oo to support these efforts waxay taageersan yihiin oo la jiraan maxkamadda marka madaxweynihii dalka ninkii haystay Treasury Department-ga dalka Mareykanka labadaba waxay taageersan yihiin in businessyada aan lagu qasbin in dowladda federaalka ay u gudbiyaan maxkamaddana waxayba soo goysayba in qodobka afraad ee dalka dastuurka dalka Mareykanka u yaalo oo diidayo oo ku qasbayo dowladda federaalka inay la timaado warranty si gurigaaga ay u soo gasho businesskaaga ay u soo dhex gasho in ay sharcigaas uu jabinayo sharcigan CTA-ga ah ama Corporate Transparency Act-ga la yiraahdo oo ku qasbayay ganacsiyada yaryar in ay actually let's say in ay soo report gareeyaan magacooda EIN numberka oo ah employer identification numberka iyo in maaragtay qofka iska leh magaciisa iyo adresskiisa company kasta oo dalka Mareykanka so 30 million oo company it's not number yar maaha numberkan numberkaas marka 30 million companies oo small businesses ah baa laga rabay inay soo report gareeyaan laakiin maanta laga bilaabo waa la joojiyay labadaas maxkamad ayaa isugu tagay qolada la dhaho Treasury-gana waxa ay go'aansadeen in ay case-kaas ay ka baxaan oo ay joojiyaan ganaaxii ay sheegayeen xabsigii ay sheegayeen iyo $606 oo a day ganaaxi lahaa qofka markii uu soo report gareyn waayo businesskiisa so intaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago haddaa wax su'aala qabtaan waa soo weydiin kartaan I can answer for you laakiin as of March 3rd bisha saddexdeeda waxa aan idin rabaa inaan idin caddeeyo in sharcigii CTA-ga oo ahaa Corporate Transparency-ga Act-ga ama BOIR-ka ahaa iyo Beneficiary Ownership Information Reporting-ka ahaa in la joojiyey oo arrin aad iyo aad muhiim inoo ah weeye don't forget inaad qof walba la share garaysaan videoga because there's a lot inoo ah weeye
don't forget inaad qof walba la share garaysaan videoga because there's a lot of Somalis oo dalka Mareykanka ku nool oo ganacsi u register garaysan yahay laakiin aan la soconin meesha ay wax marayaan because I've been paying attention to aan sharcigan maanta iyo maalinkii la baasiyey ilaa haddeer waan la socday il gooni aan ku hayay and I made a lot of videos marka videos fara badan baan ka sameeyey marka la enforce garaynayo oo la rabo in la qabtana waan soo sii dayn jirnay video marka la joojiyana oo maxkamadda hor istaagtana waan soo sii daynayna video kale so maanta that exciting news warkan war aad iyo aad u farxad badan waaye please la share garaya dadka si ay u gaarto more people insha allah intaas haddii aad wax su'aala ka qabin arrinkan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu